aroos ka dhacay magaalo ku taala dalka Shiinaha ayaa yaab iyo amaka ku soo dhamaaday kadib markii ninka caruuska ay qabsatay gabar kale oo xiriir uu horay ula lahaa xilli isku diyaarinayay inuu jaro toortaha arooska. Gabadh uu xiriir horay ula lahaa ayaa iyadoo ku labisan dharka arooska goobta si degdeg ah u soo gashay iyadoo deetana ku dhagtay wiilka kana codsatay inuu cafiyo oo dib u soo celiyo xiriirkoodii burburay. Muuqaal laga soo duubay ayaa la arkayay gabadha oo ku qaylinaysa isoo laabo aniga ka qaldana iyo eryo kale iyadoo haysata jilbaha wiilka caruuska ah. Caruuska ayaa muddo isku dayay inuu ka dhaqaaqo iskana fujiyo gabadha balse way ku adkaysatay inay ku sii dhaganaato iyadoo ku cataabaysay erayo qiiro xambaarsan. Gabadha wiilka la aqalgalayay ayaa iyadu indhaha ka daawanaysay waxa meesha ka dhacayay iyadoo markii dambe ka dhaqaaqday goobta iyadoo aad u caraysan dhanka kalena argagaxsan. Muuqaal 30 daqiiqo soconayay oo laga soo duubay dhacdadan ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada dalka Shiinaha iyo guud ahaan caalamka oo dhan. Ninka caruuska ee arooskiisu uu buuq qahrayay ayaa wargeyska Daystar ee ka soo baxa dalka Shiinaha u sheegay in gabadhan hadda buuqa ka abuurtay xafladda arooskiisu uu muddo xiriir jacayl lahaa balse ay kala tageen kadib markii isfahan darro ay soo kala dhaxgashay. Dhanka kale qaar ka mid ah dadkii aragtidooda ka dhiibtay sheekadan ayaa taageeray lamaanahan cusub iyagoo cambaareeyay falka ay gabadhu ku dhaqaaqday.